الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين maanta waxaan halkan u fadhinaa sida la socotaanba waxaan loo xayeysiiyay wasaaradda caafimaadka gaar ahaan isbitaalka guud ee Hargeysa 8 position oo si daahfurnaana bulshada loogu bandhigay inay u soo tartamaan positionadaas oo la xayeysiiyay 21 bisha socdana ilaa 28 bisha 6 2020 waxaan maanta halkan u fadhinaa xubnihii panelka oo ku dhaarin doono positionadaas waxa soo xareystay markii la kala hufay ee laga saaray wixii ku soo celceliyay emailada iyo kuwa magac qura soo diray ama salaam ku soo qoray 544 kaalin tartame ayaa u soo tartamay ku xigeenka agaasimaha isbitaalka 330 xubnood baa u soo tartamay maamulka iyo maaliyadana 290 xubnood baa u soo tartamay madaxa cududa shaqaalaha 770 xubnood baa u soo tartamay madaxa qaybta xanuunada dhimirka 6 xubnood baa u soo tartamay madaxa adeega caafimaadka ama isduuha adeega caafimaadka waxa u soo tartamay 24 xubnood ku xigeenka madaxa adeega caafimaadka 31 xubnood baa u soo tartamay matronka ama chief nursingka waxa u soo tartamay 20 xubnood kaashiyerka isbitaalkana waxa u soo tartamay 107 xubnood intaas marka loo geeyo wixii xumaaday positionska iyo guud ahaan tirada guud ee san sheegay soo xareystay waxa weeye 544 xubnood marka maanta halkan waxaynu ku dhaaranaynaa ku joognaa gudidii oo laga soo xulay hay'ado kala duwan hay'adahaas oo kala ah wasaaradda caafimaadka oo agaasimiga guud fadhiyo gudoomiyaha hay'adda maamul wanaaga agaasimaha isbitaalka madaxa shaqo qorista iyo xulista iyo dalacsiinta ee hay'adda shaqaalaha madaxa cududa shaqaalaha ee wasaaradda caafimaadka gudoomiyaha hay'adda mehnadayaasha caafimaadka iyo gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa oo soo wakiishay xubin ka tirsan saraakiisha sare ee jaamacadda Hargeysa iyo agaasimaha guud ee maxadka shaqaalaha dawladda iyo aniga gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda waxaanu maanta halkan markaa bulshada ugu sheegaynaa in hawshaas si daahfurnaana alla ka cabsiya oo cad oo hufan loo gali doono cidii ilaahay siiyo ee aqoonteeda iyo burhaanteeda markay soo bandhinto loo arko inay u qalanto sida loo doonayana ay ku soo bixi doonto biidhnillaahi tacaala waxaan nimka gali doonaa dhaartii waxaan jecel qof walba inuu kursigiisa istaago insha Allah tacaala waxa igu wallaahi ah oo igu billaahi ah oo igu tallaahi ah inaan si alla ka cabsi leh oo daacada oo qaranka la xijeclo u leh aan tartamayaasha muwaadiniinta u kala saari doono oo ninkii cidii ku soo baxda ee aqoon iyo xirfadeedu siisay aanu ku go'aan qaadan doono biidhnillah cidii ku soo baxda xirfadiisa aqoonteeda aan ku go'aan qaadan doono insha Allah aad baa u mahadsantahay. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.